fahanka dhagarta iyo shirqoolka argagixisada ee ciidamada difaaca Puntland waa mid maanta argagixisada Daesh ka dhigay kuwa meydkooda la kala guri waayay 41 argagixiso oo dhamaantood baa ajaanib dalalkoodii uga yimid sidii dawladnimada iyo nabadda ummadda reer Puntland loo wiiqi lahaa ayaa maanta meydkoodu teedsan yahay buuraha Caalmiska damacaasi guracan ee argagixisadu ay iskugu warantay waxa meesha ka saaray wiilal loo carbiyay sida argagixisada dhag iyo dhaman loogu dhufto warba waa kan dambeeye halyeeyada Puntland oo kaashanaya xogaha sirdoon ee hay'adaha mukhaabaraadka Puntland waxa ay suurtageliyeen in ay fashiliyaan dhagarta argagixisada Daesh ay soo qorshaysay balse fashil oo kaliya ma ahane halgamayaasha ciidamada difaaca Puntland waxa ay hawlgalka fashilinta ku korwadeen hawlgallo xoog leh oo si isku mid ah uga bilowday abaara 4 aroornimo ee subaxnimada saakay deegaanada Barako Darjaale Dawacale Gidays Moqor Miro Tuula Ciise Dooxa Gaban Higlaka iyo Ilya Cameera dhamaantood deegaanadaasi waxa ay iskugu jiraan kuwa halgamayaasha ciidamada difaaca Puntland ay hawlgallo toos oo qorshaysan ay ka fuliyeen iyo deegaano kale oo looga daba tagay firxadka argagixisada wali hawlgalkaasina waa uu socdaa Puntland ma jirto dawlad iyo ciidan shisheeye oo ka garab dagaalamaya ama ka caawinaya hawlgalka gobolka bari looga ciribtiraya argagixisada caalamiga waxa ay ku tashanaysaa awoodeeda dawladnimo tan shacabkeeda iyo tan alla weyne kaalmadii caalamiga ahayd ee caalamku mudsanadadii u dambeeyay uu ku taageerayay ciidamada Soomaaliyana waxa ay noqdeen kuwa siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud oo kaliya lagu barintaaro maalin walbana dhul iyo qabiilo Soomaaliyeed oo nabdoon lagu weeraro halka Puntland ay maanta kaligeed dhul Soomaaliyeed ay ka sifeynayso argagixiso caalami ah oo Ciraaq Syria iyo Yemen soo gubay Soomaaliyeedka Puntland waa kuwa ay ka go'an tahay inay dhiigooda u qubaan nabadda iyo xasiloonida dadkooda shacabkuna waa kuwa mar walba midig iyo bidixba ku garab taagan dawladooda afmeer iyo Caalmiska Tika gacan sare godka qodobay ku gubaya shariiga